أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Naciima, halka aad iga daawanaysan waa channelkeeni dhaqaaq aad dhaxashide maalmo cusub muuqaal cusub dhamaan asxaabteyda walaalaha channelka dhaqaaq aad dhaxashide aad idin salaama duhur wanaagsan galabnimo wanaagsan fiidnimo wanaagsan subax wanaagsan qof walba waqtigeeda u taan insha Allah idinku salaama soo dhawaada muuqaalkan ataakilkiisa soo aragteen ayaan rabaa maanta insha Allah siday tahay inaan u dul istaago duu Ilaahay yiraaho walaalaha cusub aad iyo aad ma mahadsantihiin channelka inaad subscribe noo saarteen aad idinka mahadcelinaa soo dhawaada sababtoo qofka markuu ku yimaado waa la soo dhaweeyaa soo dhaweyntii ka mid tahay oo macnaha qofkii channelkaaga ku yimid inuu gurigaaga ku yimid la mid tahay soo dhawaada walaalihii hore ila joog dhamaantiin sida u share gareynaysiin muuqaalada aan soo geliyo waa idinka mahadcelinaa like noo saara share gareeya gaarsiiya meel walba insha Allah muuqaalada aan soo gelinayo waa kuwo yani subhanallah kalimatullah hiya al-ulya وكلمة الذين كفروا السفلى إلهي معناها كلمة الله هي العليا مر والبؤ كلمة إلهي أياس الرئيسو الحمد لله رب العالمين شكري فتحي عبسية أيان روا مانتنا إن شاء الله إنا مقال كان أنك سوق بيادو إلهي راه كهر إنت أنا تسيطوصا عني مقعد سوق هذا أو حواي أود إيو محو هاي أقوان إلهي وإسيان أنا مقعد سوق هذا أو مكو كردوايو مرنا قفك هذه أن يعني أن أتشيدون بربي إنا وحي وكو قلدنيا إنا فرتك صعب meelaha uma laabta ama kokordhow iyo magac gomaar la yiraahdo anaga dadkeena asre koonfur waxaan raahaa gomaar waxa macna qofkeed magaciisa soo qaadanaynin laakiin asaga aad u wadid hadalkii aad wadiyo dhan taas waxa la yiraahdaa fulinimo marka fadhiyo fulay way ana rabaa inaan idin baro insha Allah dad yar oo masaakiin oo markaas ay macnaheeda iyo noocyada ay tahay aan fahansaneen ee hawada ka haysata qaar badan alxamdulillah waa ka talaalnay oo talaalkii Ilaahay uu nagu guuleysiyay inta dhiman rabnaa insha Allah inaan si yani fi sabilillah la nuriidu minkum jazaa'an wala shukuran anagoon ka raadinaynin shukri jazana aan ka rabin inaan ka talaalno talaal free ah la yiraahdo aan qaybta casma maqli jirto yaan rabnaa insha Allah inaan ka talaalno maxaa yeelay waa virus aad u xoogan waan la dagaalamayna intii markaas karaankeen uu yahay Ilaahay uuna amray ayaan kula dagaalamayna anaga markaas kalimatullah hiya al-ulya daba taagan oo muxuu ahay waxay tahoodhan inaan banaanka soo dhigno insha Allah uga digno ummadii ugu talagalnay marka soo dhawaada hadii Ilaahay yiraaho waa tuma Naciima raba marka ka horeysa inaan idin ka hormariyo insha Allah walaalaha i garanaayo way yaqaaneen walaalaha i garanaynin yaa raba inaan isbaro waa tuma Naciima waa qof yani laba waalid subhanallah ay soo koriyeen oo aad qiimo leh oo sharaf leh oo macnaha aad ka garanaysiin ilaa qofka markii aad saas u daawanaysid labadii waalid oo soo korisayna asaa ka turjumayo labadaas waalid ay soo korisay oo macnaha hadii aniga qof aan isheeno saasoo kale saano kale uu qofkaan ii hortaagan yahay macnaha aan ama isdagaalsanahay ama aan wax isu sheegayno si kasta laga ma yaabo waalidkii dhalay inaan ku xadgudbo wax kasta qofkaan aan u qabo marna laga ma yaabo inaan ku xadgudbo oo Naciima waa taas oo qof kale waalidkiisa kuma xadgudbo maxaa yeelay aniga labadayda waalida sharaf iyo qiimo igu soo koriyay iyo ihtiraam dadka in la ihtiraamo la weyneeyo okay qalqullaahina kuma xadgudbo Ilaahay abuurkiisa anoo qofkaan iska dhicin karo dhingad yar rabaash intaan ka badiyo dhulka ku rido adana ka dhaqaaqi karo ma laga yaabo inaan muxuu ahay abuurkiisa iyo qalqigiisa iyo sankiisa asaas iyo ishiisa asaas iyo sidaan uu eegyahay waxaas ina iraaho awood ma lihi oo Ilaahay asaa farsamadaas iska leh abuurtay qofkaan dhib kasta uu meel kasta uu leeyahay ma laga yaabo inaan muxuu ahay aan ku mashquulo qofkii si gaar ahaaneed asaga markaas u dalbaday inuu dagaal galo isoo Ilaahay uu qurxiyay dad waxa jira dagaal galo aad ama rufiyaamo aho ama aan maskaxdooda adeegsanin oo mararka qaarkeed dhibaato ay ka soo gaarto afkooda wixii ka baxo kale dad isku diraajo ama dad la adeegsado hadhow markaas dhibaato ay ka soo gaarto qofkaas oo kale tusaale ahaan hadii wajiga laga soo qaniino oo wajigiisa yani sida dharka kabkabka oo kale isku soo toltolo kale kaasoo kale wajigiisa toltolon hadii markaas uu yani oo face to face ku soo abaar kabkan xogaa isku soo hagaaji waa dhaxa kaas oo ma aha markaas Ilaahay oo asaa dalbadayo in la qaniino kadibna oo karkarkaas karkar waxa la yiraahdaa dharka oo kabkabka oo isku nuuc ah ahayn oo isku soo toltol
qofkii noocaas oo kale wajigiisa isku soo jiijiido oo karkar oo yahay isku soo karkaro kaasoo kale waa dhaha wajigan karkarka igor leex laakiin qalqullaahi marna kuma mashquulan ciimo waa taas waxa kale ku mashquulin oo marna laga yaabin inaan soo qaato caruur abadan qofka hataan si kasta isu dhameeno marna laga ma yaabo caruur uu dhalay inaan soo qaato wax ka sheego horta sasan ku amaananahan sharaf ku leeyahay qiiman waa ku leeyahay ilaahay aan igaarsi labadii waalidna igu duceeyeen alxamdulillaah rabbil caalamiin shukri qofka markuu guri ku soo koro waxa waaye waa laga ogaana oo macnaha ani gurigan ku soo koray dadka isku mid maahan qaarna darbiye jiif ay ahaayeen oo darbiyada ku soo koreen qaarna guri ku soo koreen qofkii guri ku soo koray sharaftu yaqaana qiimuhu yaqaana iyo sidii guri loo dhaqdo marka marwadaas quruxda badan oo sharafta laho karaamada laho waalidkeedan ka duceysatay xaajigeedana raadiyada u aho raaliya dhaaftay ayaan ahay aniga alxamdulillaah dadka la mid meehi mana dawarsado muxuu ahay mana ihi darbiye jiif midaas marka aan dheerahay dadka qaarkood ilaahay ana nasiibkiisa alxamdu rabbil caalamiin shukri awrteedan baari oo ka warqabto xilli walba ku dhex jirto oo aan ahayn afka meelaha inaan cadeeyo subhanallah ani waa taas marka yaa soo hay fathiyo marka fathiyo dad waxay soo qorayeen iyo farxiyo wixii la yiraahdo dad waxay soo qorayeen fathiyo ka maseershanta oo sidoo uga maseera aniga qof muxuu ahaa meel uu ku nafiso meel uu yani uu farxad ka helaba aan haysanin oo adduunkii oo dhan ilaahayna ku cariiriyay aakhirna wixii u yaala muxuu ahaa sababto waa munaafiqna adduunka ciil ayuu ku noolaadaa aakhirna cadaab oo ilaahay asaan noo sheego yiri innal munaafiqiina fi darki al-asfali min an-naar munaafiqa darki al-asfali min an-naar naarta qaybteeda meesha u hooseyso deganyahay fathiyo waa munaafiq marka waxay munaafiq ku tahay rasuulku noo sheegay sallallahu alayhi wasallam calaamatul munaafiq 3 ida hadatha kadab ma ku sheekeenay waa beenlow oo wuxuu umada bulshada horteeda la soo fadhiistaa been maanta dhan been ku sheekeenaa ida aamana hadii la aaminana subhanallah waa qiyaanolo hadii muxuu ahaa u sheekeenay waa beenlow hadii la aamino dadku qiyaana balan haduu dadka la dhigtana wuu khilaaf marka beentina waa calaamadaha subhanallah islaamka oo ka digay diinta islaamka ay ka digtay kadibna rasuulka midii ugu nacbana sallallahu alayhi wasallam calaamadu ugu nacbana beenta ahayd ayada marka waa beenley habkaas ay ka soo galaysaa marka inay munaafiq muxuu ahaa ay tahay beenta subhanallah rasuulka uu sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waylun halaak ha usugnaado lilladhi ki يحدث شيكينا بالحديث شيكا كشيكينا ليضحك يعني لكي يضحك سيدو وقصل سيو به القوم قوم سيدو وقصل سيو فيكذب انت بنت وشيغاي marka ay halkaan ay soo fadhiisata been umada ay been u xisa ayadoo markaas ila waa qof daciif ah hadana fulay ah si ay isku dhisto oo nolosheedu ugu dhameystirto ama muxuu ahay kiisaskii qaldana years markii 10 sano ka hor dib loo fiiriyo nuuci ay u nooleed ayadoo rabta inay dadaboosho iyo dadkii been u sheegtaa oo wax ay bulshadii la soo horfadhiisan karto oo qurux badan ama diin islaam ku saleysan ama maadiyan ay baratay ma hayso laba eray oo English ay dadka masaakiinta ah ee daawado cilmi uga dhigtaa English cilmi maaha luqadda Soomaaliga aan ku hadlayo iyo Englishka waa same waa luqad ilaahay luqadihiisa kamid ah cilmi maaha cilmiga waa la bartaa waa loo dheelmadaa waqti wuxuu u baahan yahay kalsooni aad u fog marka qofkan kalsoonidaasna ma haysto cilmigaasna jaaniski soo maray ee Mareykanka from me to New York markay tagtay dhibay la kulantay oo ah nololkiiba inay u maleysay inay wixii yani diintii la caabudi lahaa iyo nolosh habkii loo noolaan lahaa nololkaas ay u maleysay 30 sano ayaa baas gareysay cadaan iyo wixii la rafan kartay la rafatay markay indhaha soo kala qaado calal ay noqoto calal waxay leedahay maraas markay dhamaato calal ay noqotay yey istiri bulshada Soomaaliyeed guji ugu noqotid ma lahan ilaa wata duurka gashood yani aad waxaana nacaa in magaalada la soo marsiyo miyay ka imaatay New York ka degtay subhanallah Washington waxa marka ibaho imaaday in ay iska gashay suuqa sidii suuqa uga jirtay waqtigii oo ku dhamaaday soo nibdaad waa soo nibdaad markay soo nibdaaday talana fara ay ka baxday oo wax ay qabatay heeyse ay jirin waqtigiina uu baasgaray tusaale ahaan markaas oo kale masaajidka lagu carraa tusbaxa la qaata ilaahayo icafi wixii aan soo maray ila toobad keenka wixii aad soo martay ka shalaysid ayay kamid tahay oo qofka markuu toobad keeno
waxa laga rabo muxuu ahay shuruudaha toobadkeenka kamid waxa kamid ah wixii aad soo martay inaad ka shalaysid oo hadana joojisid ma joojin waxay samaysay bulshada Soomaaliyeed propaganda iyo been soo abuuratay way soo horfadhiisatay maxay soo galaysaa marka xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ah waylun halaka usugnaado lilladii yuhdithu kan ka sheeg yani lilladii ki yuhdithu sheekayna bil xadiis sheeka ka sheekayna muxuu uga sheekayna liyudhika si uu dadku uga qosolsiyo maxaa yeelay bihi qoob inuu ka qosolsiyo maxaa yeelay markaas fayakdib waa inuu been sheego kalsooni iyo aqoon bulshadii uu la soo horfadhiisto ma haayo kiisas horena way u yaaliin kiiskaas maxay rabtaa inay ku dadawasho ku duugduugto marka in ay tiraaho dumarka waa inuu xuquuqdooda aan kor u soo qaadnaa haddana dumarkii markay sida ugu sacabtimaan ay haddana u soo joogsato tiraa mas'uul karaara idinka codsadaa aniga bal sida ugu ciyaaraysa dadka daawada laftirkooda inaan dadkaas talaalka qaybta ugu waaweyn aan siinan u baahanay maxay ugu ciyaaraysaa mar waxay tiraa dumarka xuquuqdooda dumarka baa la liidaya dumarka waa saan la yeelaya mar inay saas tiraa markay runta u sheegaan ay yiraahiin adiga xaq jir baad oo talaaladii aan siinay kuwii fahmi ay u qoraan runta u sheegaan ayay waxay tiraa intay boos yani ay dhilid garaysay waxay tiraa ha aniga asaas lagu leeyahay waa lagu leeyahay sababtoo dadka aad aan kugu soo ifinayna toosh weyn aan kula daba taagana oo kugu soo ifinayno wixii aad oo dhan aan banaan ku soo dhigayno kadib ay kalsooni daradeeda ayadoo muxuu ahay tawatur iyo murugo ay ka muuqato yay soo fadhiisataa beentaas marka waxay ku qarinay qosol si dadkii kale u qoslaan ay ugu sacbiyaan waa ku ceebowday arrinkaas waad ku ceebowday toobadkeen noocaas lama yiraahdo cimraan aadaya cimro waxay u aaday inay dadka tusto macnaha aniga diin islaam waan aaminsanahay ogaada inay anaga na raali gareysan ridda ilaahay haday u tagtay beentan iyo dulmigan iyo shaydaannimadan ay wado dhan way ka toobadkeen leed oo waxay dhiileed 10 sano oo la soo dhaaf wixii aan soo sameeyay wixii ka hor 30 sano ilaahay oo iga dhaqdhaq waana ka toobadkeen ay tusbixeed qaadato leena da'daan oo kale waxa la rabay ayeeyo dadka tusayso maxaa ahay khibradihii iyo wixii ay soo martay inay uga digto la rabo laakiin godka iyada ku dhacday iyo dhalinyaradeena yar yar ka erta inay ugu yeerto ay maxaa ahay ay ku halaagto waa xaasid marka ha ilaa qofku markuu godku asaga ku kufay uu dadka yiraaho inuu duugduugo waa la mari karaa meeshaas waa xaasid waa inuu waxaan rabaa guri walba u gaaro muuqaaladeeda aan soo gelinayo aan uga digayna dhalinyarada aan uga digayna hooyooyinka masaakiinta ah qofkan waxa waaye diin la'aan haysto miyigin wax kuma soo baranin magaaladii ay imaatayna kama faa'iideysanin diiniyan imaadiyeen labada uma dhisno markaas waxay keenaysaa marka beenta ay sheegayso inay umada ka qosolsiiso alla baayay feeraha feeraha tiri qofka way qosloosa qosol dad laga qosolsiiyay iyo laba xabo English oo dadka hortooda laga soo hor istaago cilmi maahan waxay ku been abuuranaysaa marka inay ragii Soomaaliyeed oo idil macnaha ay kala jibisay cays qoysaskii inay dumiso in maxuu ahay dhibaato bulshada Soomaaliyeed ay kula soo laabatay ayadoo intaas markaas ku wajahayso kiisaskii hore oo iyada fadeexadihii ay dhex fadhisay ay ku qarinayso fidnada kale ay bulshada ku tahay waxa koow iyo laba ka ah in ay wax walbo markaas yani diinta islaamka ka baxsan ama wax xun cidii soo geliso ay taageerto culimadu markay hadlaana ay tiraa miyaan culimada muxuu ahaa qaladkooda aan la sixi karin oo adiga qaladaad 24 saac ku dhex jirta oo markii lagu soo qaato qaladkaada la soo qaado dadkii lagu sheego adiga lagu waaniyo wax lagu sheego maxaad la gariirtaa fulay inaad tahay ani waxaan ka sugayaa hadaad geesi tahay oo wax isku haysid oo aqoon leedahay aadoon abuurka ilaahayna ku caytamaynin meel kalena kula dul dhicaynin dad kalena aan soo kiraysanaynin wajiga ka karkaran aniga si toos ah isoo qaado aniga waxaan rabaa bulshada ummadda Soomaaliyeed inaan ka talaalo oo ka talaal fiican inaan siiyo dadka oo adiga fiiruskaada aan ka talaalo aad baad ranjar u tahay oo qofan dhaqan leen oo diin lehen oo dadnimo lehen oo aqoon lehen oo waqtiga xuf uu ku dhaafay oo shaydaamad ah oo fidnoolay ah oo rufiyaan ah oo bulshada dhaqankeeda iyo quruxdeeda aan ogolaan hadii adiga dhibaato kugu dhacday waxaad u egtahay qof muxuu ahaa yaraanteedii dhibaato la soo kulantay hadii yani aad ku soo degdegtay dad badan ah magaci islaameed ku soo dhoofay oo waxaan ahaa Yurub ku soo galay iyo muxuu ahaa America hadii marka magac islaameed inta ku soo dhooftay aad ku soo gashay muxuu ahaa iyo qabiil islaameed aad ku soo dhooftay oo ku gashay America
ood ku degdegtay fursad ku soo martay ahayd iyadoo laftirkeeda xogaa inaad ka faa'iidaysatid ood wax baratiday ahayd haddii aadan wax baranin ummadda been ha u sheegin been ha ugu qoslin yacni dadku inamaa yaftari alkadibi aladiina laa yu'minuuna biaayaati illaahi ulaa'ika hum alkaadibuun oo yidhi ilaahay macnaha been abuurkaas ood markaas diinta ku been abuuranaysidood muxuu ahay culummada ku been abuuranaysidood waxyaabaha aad u dido oo dhan kulligood ay been yihiin yaad ku raadinaysaa inaad darajo kuma helaysid darajo saas laguma helo darajo ina alcizata lillahi jamiican cizo iyo darajo iyo karaamo alle agtiisaa laga raadsadaa xaggayna ka imaataa sabca samaawaadkay kasoo degtaa muxuu ahay been ummadda lala soo hor istaago marin habaabin jihadii oo dadka laga leexiyo wax ma noqoto waxaan rabaa marka insha allah war yar oo iyada ay tiri inaa idin maqalsiiyo macnaha ani qof shaqaysataa ahay fursadeyda xoogaa cariiri waa ka warqabtiin janalo kalena waxaan u duubaa xoogaa marka muxuu ahay muuqaalkan inaan daraad soo geliya laakiin waqtiga ii saamixi waaye haddaan marka aan idin maqashiina waxay tiraahaa cadaaladda iyo muxuu ahay aan u doodaynaa madowgaan u doodaynaa muxuu ahay gabooye maxaa walaalaheen waaye dadka la liido soomaali walaalaheena waaye been ha kusoo gabanin been waa isqarinaysaa ilaahay diintiisana maba laysku dhex qarin karo banaanku ilaahay soo dhigaa baf munaafiq diinta kuma dhex dhuuman karo munaafiq ayaa iska jira qofka mu'minka ah looga digaa munaafiq yaa qofka kale looga digaaya dadka mu'minka ah looga digaa dadka aqliga leh walaalahayga jannada dhaqaaqa dhaxshiisa subhanallah aad qiiraysana waxa waaye qofkan sidaan u fahansanahay u aragsanahay ina ila aragtiinaan rajaynahay haduu ilaahay yiraahdo qofkan fitan aad u weyn haddaan fitanka markay yaryar tahay aan iska qabanin cuqubo iyo dhibaatooyin laga helaa gabdhaha yaryar wiilasha yaryar muxuu ahay waa hooyo muxuu ahay weynaatay hormartay waxay diidan tahay guryaha quruxda badan guryaha dhaqmaayo hooyooyinka raaliyada ah gurigooda dhaqanayo maanta dhan inay fitan ay ku dhex wado habeen iyo maalin muuqaal kasto ay soo geliso nin cawradiisa masaan u egyahay mar hadda ka hor aan ka soo hadli jir dhowr bil ka hor February inaan jecla muuqaal ay soo gelisay ninka xibintiisa ayaan muxuu ahay sidii warqadihii aan isugu qabanayna ayadoo dhehayso waxaas qof bini aadam wax soo bartay diiniyan maadiyan dhinac kasta ka dhisan bulshada inuu la soo hor istaago ciwaan ma ka soo dhigan karaa ninka xibintiisaan aan qabanayna ma xibinta ninka oo dhan aad muxuu ahay aad mas'uul ka tahay waa maya haddii adiga ay dhibaato ku soo martay ood rabtid bulshada macnaha inaad la wadaagtid dhibaatadaas adoon isqarinaynin dhibkii sheeg suuka aa uga nafistid sababtoo cuduraa ku haya xanuun xoogan oo macnaha maskaxaad ka abiyuusantoo dhibaataa ku haysato waqtigaado idil kaamirada inta ay dansan tahay farxad daraa ku haysato hadhow marka waxaad rabtaa guryihii oo dhan inaad dab ku shidid siduu adi dabka kugu daaran yahay in lagugula noolaado may waa kaa diidnay dad haddii waxaa la yidhi qoom hadday qof u waasho qof kaleenta waa inay helaan oo ka dhiciyo oo muxuu ahay waalidaas waa waalantaa walaalkaadaa laga helaa la yidhi adi ma waalid laakiin dhibka ku heesto yaad rabtaa inaad bulshada muxuu ahay aad dhex dhigtid xanuun waaye munaafiqnimada laftirkeeda waa xanuun codkeeda idin daaraa marka macnaha warkeeda inuusan islahayn oo ay marna ka hadlayso cadaaladda muxuu ahay dumarka midabta koorkaan nacbanahay liididnaantaan nacbanahay iyo hadalkaan hadduu meel isla galaayo qofka munaafiqana calaamadaha lagu yaqaan waxa wuu isbabedela marba macnaha barnaamijka markaas yaa ku wajaha haddana kan ku wajaha right ma lahan yacni wado toosan oo loo raaca ma lahan subxaanallah nabiga sallallahu alayhi wasallam masaajidkii kula tukanayeen ay la joogeen maxaa yeelay walaa tudic kulli xallaafin mahiin uu yidhi ilaahay macnaha mid kastoo dhaar badane ha aaminina hadday cimro tagtay hadday meelaha inta soo fadhiistay ay idiin dhaarato qoftaan aad ay u talaalanta laakiin talaaladeena ka awood badan kuwa ka awood badan ka quality badan yaan anagana bulshadeena u heynaa oo iyada aan rabno inay muxuu ahay keeda uu noqdo baq iyo biyo afaandeena maleena insha Allah dhageysta marka kistaan yar oo codkeeda kamid ah yani qof bulshada 24 saac markuu soo hor fadhiisto wuxuu u sheegay aan garanaynin haddana soo fadhiisanaad على الأقل إسكا عدايسو وشيك دادك ده إنا إذن شيك يا ربا لكن وإنو سيدا يلنا وإنو سان يلنا وأقوان ولهن قفك أقوان ده اللي معايتمو حبين دادو إيو محو هاي إن جنسيك معانت أتكو مشكوشا حبين تدمرك حبين ترقا هدي نبقوك هاي أما من دون آتا
buuxa ku sheeg ninaan rabaa nimanka Soomaaliyeed waa lagu baryaa maxaa yeelay aad attention-kaaga wada jiraan waxay isleeyihiin qofkan cadaan uu la jiri jireen talow haddii aad u bareertid armaad dhibaato kala kulanta mid markaas intaan ku baarno waa ku geenayna insha Allah si aad u degtid bulshadana ay kaaga neebsadaan laakiin aniga haddaad naag tahay naag hadii aad tahay aqoon buuxdana aad leedahay ani waa ka qurux badanahay waa ka aqoon badanahay waa ka diin badanahay adduunkana nicmaan ku noolahay aqrana janna ilaahay uu muxuu ahay oo igeyna oo sababtoo ah labadaydu waalna igu ii duceynaa dhintay xajigiigu ii duceynaa bulshada ii daawato ummadda Soomaaliyeed dhan ii duceynaa caruurtaydu ii duceynaa walaalay ii duceynaa qofkaasaan ah aan ku mashquulsanayn guriga inuu dumiyo habeen imaalin shaydaana ta markan ku dhahayo ibliiska waxa uu ugu jecel yahay waxa tahay inuu guri dumiyo adiga intaas ugu jecesha shaydaamada tahay marka laga qabanayo bulshada ima taqaan wallahi si fiican ay baranaysaa ha ku mashquulin on ale tos waxa aan ku hadlaayo hal eray oo aniga aan leeyahay explaining ka bixi intaas bas tus dadka ku daawado inaad isharxi kartidood explaining eraygaas bay tiri Naciime waan sharxa inaad tiraahdo adoon dad liidaynin adoon dad maxaynaynin sababtoo waa ka qiimo badan waa kana darajo badan aniga oo qoftaas quruxda badan oo sigeedii la noolo gurigeedii ilmaheeda isku haysataan ahay bulshada Soomaaliyeed ay garanayeen hadii adiga nasiibkii iyo dhibaatada kugu dhacday aad sabab u tahay umada dabha ku daarin waa dhageysanayna marka codkeedii sababtoo wax qiimo uu ii leeyahay ma jirto laakiin idinka rabaa inaa idin maqashiyo ma uu qalmidiina muxuu ahaay raali ka noqdo يا شريك طلباي ما فريد بقى إنكم مسؤولين أفكر yeah I am something special yeah something special قال لي بحيو اللي بحنا يقولوا يقولوا ده يوم يوم ما يصوف اليوم أنا جاي ترمي أنا ليس صدر أو desperate desperate إن أنا كسوها ضبط ولا إن أنا كسوها القادم وأنت كوكولا يا وأنت كوكولا ويا أنا قربوي إلى أنا كسوها القادم وأنت كوكولا يا you're not my caliber anyway this is another one واكن خويا ذي قربوي والله it's okay I know قارب بدر كجرا this is kind of funny yeah why ما يبغى يقدر I don't من سو قاعدين كتداني تسمعي واسكت ده yeah marka waxa weey inta saan ugu talagalay insha Allah ina daawatiin macnaha dadka la liidayaan aniga aan ka soo horjeeda kana ka soo horjeeda arrinkan waxaan ku wadaa dadka iyada daawado yani in aad aqligiina kor u qaadaan waxay idin akhriso iyo suurtagal misla noqon kartaa qof dhan oo Ilaahay uume kale ciday ka wado iyada aan rabaa in afkeeda ka soo cadeyso dadka lama ku kordho wal isma akhriyo aniga wixii aan toos waa baaray toos adiga fadhiya shaydaan oo dhaale aan markaan soo joogsanayo dad shayaadiin haajir ma ku dhahay sababtoo awoodaas iyo waxa leeyahay aniga muxuu ahay geesinimadaas fulaymi ma ag mara dadka dadka googoomartay muxuu ahay meelaha ka marmarto waa cid cabsanayso aniga inaan soo qaadan karin u bugta inaan u baahan aad ugu baahan inaan soo qaato may soo qaadan kartid maalinta soo qaadatid waa maalintii godkaada ay biyo kugu galeen godkaada biyo kugu galaayo wallahi magaca Ilaahay Soomahan godkaada biyo kugu galaayo maalinta aan soo qaadatid sababtoo ah oo qoyon aduleysta waxaan ahayn labadaas eray iyo oh my god iyo in aan ahayn neys maxaa kale totaysa intii aad soo fadhiisatay ee bulshada aad dib ugu soo laabatay intii aad duurka ku jirtay anaga ma ku garanaynin mana ku aqoonin qofka ahaydna waa la yaqaanaa macnaha cid aad san ka qabsan kartidaaba jirin sanka maanta hadii la qabsanayo nuucaana qabsasho leh nuucaan san ka qabsi leh marka ina isqarisid oo sariirta hoosteeda gashid ama bulshada dad soo hor fadhiisanaysidna aad tiraahid ruuxaas anaa ku soo jabay walaalayaalow ha ku jabina intaas ku leeyahay laakiin waa ka xumahay laakiin maanta waxaad daabatay waxaan dhahnaa anaga rekoofur daanahay maanta madax goon la taabatay goon lama taqaan maska kan ugu xoogana la yiraahdo goon le waa ku kawina aniga meesha adoo joogto sababtoo ah from me to New York marka aad tuuratay kadibna adoo miir kala
meelaha aad wareegi jirtay maanta ismoodimiya qof dadka soo fadhiisan karo dad rool moral u noqon karo ma noqon kartid toobad keen horta waa inaan shahadanka inta kuu qabano يعني iska ka hubinaa ku saxnaa qofka mu'minka ah munaafiqa waa inuu aad uga digtoonaada aad uga feejignaada subhanallah liska ilaaliyo boonta qofka waxa ay qabta waa cudurkeedana faris xogan u leeyahay talaalkiisana diinta isaga qabanayna insha Allah waa in salaama dhamaan asxaabteeda walaalaha jannada dhaqaaqada xishide carar waa tasnaaqta ay soo qaadato deysan qosol been iyo oh my god عروت هالك سنة جرتا جراها أو معي كو أن محوا هاي أن سكولنا ولي اللود المني لكن فدنا وضو أنا هذا هذا كبهن عيلك كل عين ده هذا كبهن عيلك اسمه كائن عين سنان كو أكيد سبحان الله وكو جرنا تجا سبحان الله برشة اللي بعتها أتكو هيسد أنا جي أديك هالكلام أنا لو كل هذا قال عفما أصحابتي إذا إن شاء الله إنه مقالك أتشير جريسان gaarsiisaan guri walba ay dab ka daartay diinta rabnaa inaan ku damino diinta ay dawada ku jirtaa fidnada iyo fayruska qofkan ay wadane subhanallah diinta ku daminayna waa in salaamay waa hal ku dhigeeni iyo ku noolow nolosha aad doonaysid assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh